Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام waxaad kusoo dhawaataan channelka Somali Share Education Network fadlan haddaad tahay qof nagu cusub subscribe-taada nagu caawi sidoo kale kambalelkana furo si ay kusoo gaaraan muuqaaladan soo dhigayno videogan waxaan ku qaadanaynaa applicationka ugu fiican ee aan ku duubo shaashada computerkayga haddii aan fiirino in waxa halkan noo yaalo in wax la yiraahdo application fast stone ayaa la yiraahdaa fast stone capture waa application aan dhigi karo application aad iyo aad u muhiim in sidoo kale waxaan isticmaalaa saad arkaysaan Camtasia balse Camtasia iyo Fastone markaan isku barbardhigo waxaa ka yar fiican Fastone wuxuuna ugu fiican waxay tahay in applicationka Camtasia mar alla marka aad ku duubtid kadib wuxuu ku save garanayaa luqad ama extension uu fahmayo in applicationkan Camtasia kadib applicationkaas ayaad markoo in outputkaas oo sameeyo kadib waad edit garanaysaa edit markaa dhaadid kadib ayaa publish leedahay ama output kale kasoo saaraysaa macnaheedu waxay tahay videogan hadda aan duubayo oo waxaan ku duubayo waxay tahay in applicationkan la yiraahdo in Camtasia marka Camtasia mar alla markii aan dhameeyo in waxaa qasab igu ah in aan process kale halkan aan keeno kadib meeshan aan doorto aan siido publish waxay noqonaysaa labo mar balse applicationkan wuxuu kaga duwan yahay waxay tahay in aan isla markii aan ku duubabo oo aan automatically save markaan aan filekeyga automatically oo save gareeyo soo hadartan applicationka ayaan ku install gareynaynaa marka haddii aad u baahan tahay in WinRAR waa ka saari doontaa haddii aad rabtidna sidan ayaad ku isticmaali doontaa balse waxaan ka doorbiday inaan sidan aan ku isticmaalo soo sidoo kale waxaa ogaataa haddii aad u baahatid applicationkan waxaad ka helaysaa videoga hadda aad daawanaysid descriptionkiisa so installkii ayaan wadnaa next ayaan leenahay I agree sidoo kale yes ayaan leenahay in kadib waxaan sameynaynaa in aan passwordkan aan soo qaadno dabcan ugu horreyn magaca ayaan soo koob gareynaynaa koobi ayaan leenahay finish markaan dhahno automatically applicationka wuu nagu install gareysmay haddii aan hadeertaan ran gareyno wuxuu leeyahay in enter registration code marka enterkaas ayaad dooranaysaa kadib in waxaan halkan ku baast gareynaynaa magacii aan soo koob gareynay sidoo kale halkan waxaan select gareynaynaa serialka ama passwordka mar alla markii aad soo koobi gareysidna waxaad ku baast gareynaysaa meeshaan control v ayaa leedahay kadib register ayaan leenahay register markaan dhahno wuxuu leeyahay automatically waa ku guuleysatay in congratulation ayuu noo soo bandhigay micnaheeda passwordka aan gelinay iyo magacaba waa naga ogolaaday okay ayaan dhehnaa sidoo kale in aan iska xirno marka applicationka wuu soo kacay balse aan xiro mar alla markii applicationka aad ku install gareysid waxaad kusoo kicinaysaa double click markaa dhahdid sidan ayuu kugu soo kacaya ujeedka aan u xiray waxay tahay inaan aragno mar alla markuu soo kaco inuusan shaashadaada oo idilka buuxinayn oo kaliya in midkan yar uu yahay marka haddii aan u baahannahay inaan ku duubno in shaashada computerka waxaan dooranaynaa midkan hoos aan dhigo waxaan dooranaynaa in dhankan meeshaan markaa dhahdid waxaan ku qoraysaa aad arkaysid screen recorder so screen recorderkaas ayaad click gareynaysaa markaa click gareysid sidan ayuu kugu soo bixi doonaa sidaa marka kugu soo baxo waxaa awood u leedahay codka ama microphoneka inaad waxaad ka bedeshid settingkiisa sidan ayaa ugu bedeli kartaa sidoo kale area ama meesha la record gareynaya ma screenkaaga oo idil ayaa u rabtaa ama meel qaas ah balse waxaa fiican inaad dooratid sida defaultiga ku ah waxaad dhihi kartaa in full screen marka full screenkan ayaa fiican midkan aan doorano full screen markaad dooratid kadib waxaad bilaabaysaa record ayaa leedahay soo saarkeeno videoga duubistiis muusan bilaabno wuxuuna soo bandhigay videoga haddii aan duubis aan bilaabno in frame sizekiisa waa intan ayuu ku leeyahay frame rateka waa intaan marka intaan oo idil wuxuu kugu socodsiinayaa in haddii aad dugtid outputka videoga soo bixi doono inuu framekan qaadan doono marka waxaan sii leenahay star ayaan leenahay star markaan dhahdid automatically waxaa bilaabmay duubistii applicationka hadeertaan saad arkaysid wuxuu duubayaa in codkeena sidoo kale wuxuu duubayaa screenka computerka ama laptopkaaga marka haddii aad u baahatid inaad joojisid waxaad ku joojin kartaa inaad dhankan ay imaatid kadib asiga aad riixdid mar alla markii aad riixdid automatically muuqaalkaaga sidaas ayuu ku joogsamay marka haddii aan u baahanahay inaan muuqaalka continue aan sii dhahno resume aan riixaynaa haddii aan dhahno discare aan rabnin muuqaalka aan duubnay inaan ka wada baxno wuxuu duubana aan iska dhaafno discarkan ayaa riixaynaa marka haddii aan u baahannahay inaan save gareyno wuxuu noo duubay waxaad leedahay save ayaa leedahay save markaa dhahdid wuxuu ku weydiinayaa areada ama positionka aad u baahantahay inaad ku save gareysid
marka waxaan leenahay desktopka waxaan u bixinaynaa tijaabo ama test aan dhahno magac markaad ku qoratid waxaad leedahay save markaad dhahdeed save markaan dhahno automatically waxaa soo shidmay muuqaalkii marka Camtasia wuxuu kaga duwan yahay save markaad dhahdeed hadda duwist markaan dhamayna save aan dhahno waxaa qasab ugu ah in automatic dhexdiisa aad ku edit garaysid kadib publish aad soo dhahdo balse kan wuxuu kaga fudud yahay mar alla markii aad save garaysid videogaaga sidaas ayuu kugu save garaysan yahay shaqo kale ma kugu diraayo haddii aad u baahan tahay inaad edit garaysid aad wax ka jirtid wax ku dartidna waxaad ugu tagaysaa applicationkan la yiraahdo Wondershare balse haddeertaan marna inaan wax aan ka edit garayna kaliya waxaan ugu talagalnay inaan idin tuso applicationka qaabka oo u shaqeeyo iyo sida uu u fudud yahay waana ku maasan tahay daawashada muuqaalkan videogeena halkan ayuu ka yahay. Assalaamu